Salaamu calaykum walaalayaasha kusoo dhawaada channelga Anino Designs. Maanta waxaan ka hadlaynaa 10 healthy discipline strategies that works maaragtay oo ciyaalka aad iyo idinka ayaa i weydiiseen hooyooyin badan sidaan ilmaheena aan edabta u bari lahayn wad naxariis iyadoo ku jirto. Walaalayaal kusoo dhawaada channelgayga anigoo walaashiina Yasmiin ah. commentigiina ka bixiyo walaalayaal. I want to know waxaad su'aalaha qabtiin iyo waxaad rabtiin inaan ka hadlo iyo also maaragtay share feel free inaad share garaysiin maaragtay videogan maaragtay hooyooyinka ay anfacayaan aad ogtihiin iyo also maaragtay you can also follow me maaragtay Snapchat-ka iyo maxaa la dhahaa Instagram-ka waa mahadsantihiin. Show and tell wax badan ayaa maqli jira ayeeday oo dhahdo ratigu ka horeeyo saantiisa ayuu qaadaa. As a waalid maaragteen annaka ayaa ratiga hore ah iyagana waa ratiga dambe. So ficilka aan suubino is ficilka iyaga affect gareynaya ciyaalkeena. So haddaan rabno ciyaalkeena inay waxbarashada iyo hadal celiska iyo maaragtay wax maqalkooda wanaagsanaado annakana as a parent in aan iyaga maqalnaa iyaga aan respect gareynaa oo haddana markaan wax u sheegayno in aad dhulka inta fadhiisatid maaragtay size-kooda la noqotid oo dhahdid hooyoy waxaan rabaa markaa cuntada sixinkan kaba soo qaad ku cuntid in aad ka qaadid halkaas sinkaga geysid wiiga ugu horeeya adiga tusi ka qaad gee tusi ma fahantay cunuga indhaha waa inuu arkaa wixii aad rabtid inaad tusisid but in aan levelkiisa aan noqono waaye ilmahan haddaa adig taagan aad la hadashid waxaad tusinaysaa inaad ka weyn tahay inaad power ka weyn tahay waxaas dhan haddana markaa wax u sheegayno inay erayadeena ay si degan aan ugu sheegayno oo qaylo ku jirinin oo cay ku jirinin ba aan tusinayno ficilkii cunuga haddaa rabti inuu ku maqlo faasta adiga markuu wax ku weydiiyo inaa adigana maqashid waaye oo soo jeesatid taleefon markaa kasoo hadlaysa kaba soo qaad cunugaadaa kula hadlay yaa priority ah hadduu taleem hooyo wax yar ma isiin kartaa 2 minutes marka inaa respect siisid waa isagana respect buu ku siinayaa mogta waa human being iyagaba aan hooyo 2 minutes ka isii inta taleefonka dhameynayo ma fahantay markaa dhameysidna hadiiba la hadla haddii uuna callkaas important ahayn oo qof saaxiiba iskala hadlays hold gali qofka wax tiraada isuu cunugaygaan la hadlaya adoona wax kale aada suubinaynin oo attentionkaada wax kale aad siinin ayaa cunuga indhaha ka fiirinaysaa markaasaa leeda hooyo maxaad i weydiinaysay cunuga waxaad tusinaysaa actionkaada cunugiina sideebuu kuula dhaqmayaa ma fahantay set limits walaalayaalow waxaa jirto waalidka xaqiisa iyo ilmihiisa xaqiisa waa in aan kala reebno ma fahanteen ilmaha waa inay ogaadaan markaan la hadlayo in aan waalidkiis ahay oo bari karaayo aniga waalidka sidaan ayaa loola hadlaa cunugiina uu isagana ugu ogaado ficilka saa ula hadlaysid isagana saa adiga waalidka iyo dadka waaweyn ula hadlaysid buu isagiina kuula dhaqmaya ma fahantay so sideebaad set limit u suubin kartaa family ahaan kaba soo qaad 5 ciyaala leeda 4 ciyaala leeda 6 ciyaala leeda ciyaalada way iscaynaa ereyo xunaa jirto galaasmanka saasay ku imaadaan so waxaad suubin kartaa family meeting rules markaa rules gurigeena u suubisan kartaa waa la fadhiisan kartaa ciyaalkii dhan markaad la fadhiisatid waxaad leedahay gurigeena erayo xun erayo wanaagsan maahane erayo xun ma isdhahayno walaalka hadduu wax kaa qaato computerka kaba soo qaad haddii aad dhahdo kuu soo celinaa waqtigaa dhahdo u soo celin u keen walaalka ha caynin cay iskuma lihin isma cayno walaalaa nahnay familiyaa nahnay always family isticmaal dad isjecelaa nahnay dad walaalaa nahnay jecel maaragta markasta ciyaalkii kulli dhexgeli ha ka tegin walaalka erey wanaagsan walaalka u isticmaal markuu qof hadlaayo sugo adigana taankaada aan iska dulqaylinin ma fahantay walaalka caawi hadduu caawitaan u baahan yahay ma fahantay maxaa la dhahaa familkeenana waxaan ka hadalnay dadka kale ha u sheegin aniga gabadhayda ruulaan leenahay
markii familigeeda friendskeeda aaday waxaas waxa ani iyada ka hadalnay dadka kale ha u sheegin waxa anaka familkeena ka dhacay ha u sheegin dadka kale walaalka ceebtiisa u astur adigana waarid ahaan taleefanka markaan ku hadlayno marmar as a family Soomaali haddaan nahnay waan is ilownaa ciyaalkii wixiisana u sheegaynaa ba annaka waxay arkaan way ka duwan yihiin ani markaa hooyo noqday inaan nafteyda bedelo aan rabay wax kasta aan gabadhayda aan la rabin inaan aniga iska jaro hadday gabadhayda aan ku leeyahay inaan dadka kale respect garayno waaye oo is caawino erayo wanaagsan isticmaalo walaalaheena caawin ani inay igu aragto waaye walaalahey anoo jecel ani inay aragto waaye dadka kaleeto hooyooyinka kale si sansa uga sheekeynayo not taleefanka ku xamanayo hooyo kaleeto so ilmaha waxaas way dhageysanayaan so walaalayaalow aan iska dayno ilmaha horkooda xataa wax aad mugdi ku samaysid hortaada imaanaa once it will be on the light buu noqon doonaa maruu wax qurun akhrisid buu soo baxaa xataa badankaana culturekeena waxay dhahaan ciyaalka intaynan maqlin aan lug ku hadalno saan dhahno wax hadday xun yihiinba oo familkaada isdhehaysid iyo adigana in ilmahaada inay suubinin ee aada rabin inay suubiyaan iska go baantay so family rule-ka qof kasta input ha yeeshto markaa qoraysa family rule-ka yaa kaba soo qaad maxaan lahaa markaa aadayno target gabadheed waxaan ku dhahaa wax kasta aragti lama gato miyaad u baahan tahay isweydii there's a want and need maaragtay need and want so cunugaada bar miyaad u baahan tahay is it necessary inaan soo gadano lacagta qiimaheeda bar haddaa isdhehaysa cunuga still resistant uu yahay inuu wax kasta gato dollar sii wax dhadaa dollarkaas adaa iskale waxaa ku gadanaysa itusi markaa bartid waaye adoo waxaa arkaysaa cunugii markaa controlka siisid isagoo dollarka guriga la imaada arkaysaa because adiga ultimately responsibility-na as a parent waxay tahay in ay ilmahan meel iska soo saaraan oo kuwa respectful ay yihiin iyo kuwa aan ku faraxno oo saas inay noqdaan